horaantii bishan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa la kulmay ardayda Soomaaliyeed ee wax ku barata waddanka Suudaan gaar ahaan magaalada Khartoum xilli uu ka qaybgalayay munaasabadda shaacinta heshiiskii nabadda ee hogaamiyaasha Suudaanta Koonfureed. ardayda Soomaalida ee ku nool waddanka Suudaan waxay xilligaasi ka faa'iideysteen fursad ay muddo naawilayeen. waxayna ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre goob fagaaraha ugu sheegeen dhibaatada ay ku qabaan maamulka safaaradda Soomaalida ee waddanka Suudaan. gudoomiyaha ardayda Soomaalida ee Suudaan ayaa si dareen leh ra'iisul wasaaraha ugu jeediyey codsi uu wakiil kaga ahaa inta badan ardayda Soomaaliyeed ee wax ku barata waddanka Suudaan. ra'iisul wasaare waxaan ka codsanaynaa maadaama aad adigu haysid maanta inay wax ka bedeshid dadka u shaqaynaya dadka inaad iga bedesho dadka safaaradda jooga kulligood. waan hubaa haddii daacad aan ku qaban lahayn in meelo kafisada waayahay. mudane Xasan Cali Kheyre ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo ka jawaabayay codsiga ardayda ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay maanta joogaan waqti ay codkooda ku muujin karaan rabitaankooda. aanu amaanayaa wiilkii dhalinta yaraa ee halkan soo istaagay oo ah gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan. oo caawa aqbalay hadalkii ra'iisul wasaaruhu sanad iyo 6 bilood uu ku lahaa shacabka Soomaaliyeed codkiina kor u qaada. waxaan ku bishaareynayaa waa dhamaatay waqtigii qof Soomaaliyeed xuquuqdiisa la duudsado haddii la soo gaarsiiyo farmaajo Xasan Kheyre. waxaan rajaynayaa in qof walba Soomaaliyeed oo dhageysanaya meel walba uu joogo Suudaan iyo Soomaaliya iyo dalka dunida in la soo gaaray waqtigii Soomaaliya ay run isu sheegi jirtay. anigu ma ooyi Cabdulqaadir waxa uu halkan ka sheegay inay dhab yihiin. waxaan idin ballan qaadayaa laakiin in la ogaanayo inay dhab yihiin marka la ogaadana in laga qaadayo tallaabada ugu habboon sida ugu dhaqsaha badan. xukuumadda Soomaaliya waxa ay hubinta jiritaanka cabashada ardayda Soomaalida ee Suudaan ku qaadatay muddo ka badan 10 cisho. waxaana ugu dambeyn wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya oo fulinaya codsi ka yimid ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku amray dhammaan mas'uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee Khartoum inay si degdeg ah u yimaadaan magaalada Muqdisho. go'aankanina waxa la sheegay inuu jawaab u yahay cabashada ardayda Soomaalida ee Khartoum. qof kasta oo safaaradda Soomaalida ee Suudaan ka howlgala ayaa la amray la faray inay dhaqso u soo noqdaan. arintaasi waxay daba socotaa amar uu ra'iisul wasaaruhu bixiyay kadib markii uu booqashadiisa ugu dambeeyay ee Suudaan uu u kurgalay shaqada maaragtay safaaradda ka socota uuna dhageystay warbixino iyo warbixino ay shacabka Soomaaliyeed ardayda Soomaaliyeed Suudaan joogta ay siiyeen. si kastaba ahaatee muddooyin ku dambeeyay waxaa socday tillaabooyin ay qaadayso dowladda Soomaaliya kuwaasi oo ay kaga jawaabayso baahiyaha shacabka. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho.